بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. شاha laga daba dhacay boqol goorba la soo weydiiyay. taasi waa rosemary ma sha Allah noo baxdaa iyada jirka timaha dhuumaha dhuunt ay maraan hawadu meel aan ka dawahay kana waa mint waa dawo kana waa dhagayare ma sha Allah in badan baa mar dhowr goor hore ayaa la soo weydiiyay qof walba wuxuu waxaan doonaynaa bal shaahaas inaad noogu soo celiso oo ku soo celiyay ma sha Allah waa laga daba dhacay ma sha Allah waa soo maydhay dhagayare waa antifungal antifare antibiotic and antiseptic wax aan ka dawahayn ma jirto kan waa la mid ma sha Allah waa mint ama nacnac ka loo yaqaano dhagayare iyo rosemary da ma sha Allah yaan ku dar waa la karinayaa marka la kariyo biyahooda boqol wax oo kala noocan ka sameeyo insha Allah sigi dabkaan saarnay karsantaan meeshii kani waa baylifis waa baxar saaf in baan ka goosanaya imika بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. دولكي waxaa ka socota dhibaatooyin fara badan oo ay kamid tahay kanaaco xooga ilaahay umada kanaacadii wixii dhalinayay iyo dhirtii laga cunayay iyo dhirta la beerto oo ay miraamirideen ugu qaalisanayd ee aynu beeran jirnay ee harka laga dhigan jiray miraamirida ka dawo oo ka koow ah nin baa la yiraahdaa saliideedu halkan waa qaali midhaheedu waa qaali wax kastaba waa qaali waxyaabaha wanaagsan ee dhirta la beerto ee aqalka hareerihiisa hadii laga beerto ay ka cararayso meelaha lagu beero ma timaado in biyaha meelaha ay joogan iyo biyaha la shubtaba in aanay ugu xan dhiganin hal dhiit la yiraahdaa jirto oo lagu shubto laakiin taas waa medical ahaan laakiin na daboosho hadiyo jeer in dhirta fiican oo ay kamid tahay neemku baxar saafku uu kamid yahay miraamirida neemka aan sheegayno dhirta in la beerto oo ay kamid tahay bahashan la yiraahdo oo kamid yahay rosemary anigu ma hayo imika laakiin marka uu budada bahalkiisi wakaas marka uu qalalan yahay isagoo qoyan ma hayo waa la karsadaa isna waa la cabaa rosemary baa la yiraahdaa dhirta in la beerto ay u baahan tahay oo la barto dhirta hadaad ku beerto aqalkaaga hareerihiisa eryanaysa oo aan sheegay miraamirideena u horeyso kow waxyaabo badan oo in la cuno bahashan waa bambeella waxaan inaan kala hagaajiyo weeyaan bahashan waa bambeella waxyaabaha kale aad u wanaagsan qofku inuu istado oo isqariyo oo jirkiisa meel banaan u diido si aanay u qaniinin iyo kooka ah hadiyo jeer qofku inuu tan iyada bambeelladani waa number 1 marka ay parasite-keedii dishaa marka in baad ka karinaysaa intan imika waan karinayaa macaagalkeeda waan isku karinayaa aad bay u wanaagsan tahay marka waad miiranaysaa halkan aad ku ridanaysaa ma sha Allah digsigan aan ku ridanaynaa waad miiranaysaa ma sha Allah shaaheeni aan ka sameynay bambeelladu waa kay noo bislaaday saasaad u shubanaysaa adaa isku dhaqtara marka malaariyada waxaa jirta dawooyin marka aanay isku habboonayn inaad cunto intan waad miiranaysaa intan ka hadhay waad miiran kartaa ma sha Allah waxyaabaha kale u wanaagsan waxaan sheegnay inay kamid tahay oo u horeyso bahashan iyadana shaaha baad ka dhiganaysaa waad cabaysaa waa turmeric ama huruud waa dawo ma sha Allah wax loo dhigaa ma jirto sinjibishana ka koow ah iyada sinjibisha waa tan la kariyay ma sha Allah magac miskiin lagama aha waxyaabahan oo dhan waa waxyaabaha caawinaya marka ay kanaacadu ku hayso halkan waxa ku jira toontan iyo kan waa qorofal Kenya intuba iyagana waa ma sha Allah inaad samaysato aad bay u wanaagsan yihiin raal halaga hada meeshan ay wada qaaday
kani waa orange juice oo soo shiiday soo miiray orange juice xabadun baad u baahan tahay waayo sugar badan baa iyadaba ku jirta oo fructose nooca la yiraahdo oo aan marka xabadii baan soo miiray biyaan ku daray marka waxaan oo dhani waxay u dawo yihiin maxaynu nidhi waxay u dawo yihiin qofka markaad kaneecada marka marba in ka cab liindhanaanta ka kow ah liindhanaanta wax la yaraysto maaha marka ay xumada ku hayso dhuunta qalalkeeda iyo waxaas oo dhan rosemary aan idin tusayay ma hayo rosemary qalaylkeedaan hayaa maasha allah waa kan iyada oo qalalan maasha allah rosemarygan dhirta in la beerto iyada iyo ay ka mid yihiin iyada maxay ahayd miraamirideeni baxara saafka dhirta cinderella bahal la yiraahdo laakiin geedkaas inuu Soomaaliya ka baxay in kala warmahayo qolada dhirta la weydiinayaa dhawaqan meel fog lagu tuuro dadku waxyaabaha isku daweyn karaan waxaan idhi laha afka hore ka xidhan toobabka afka hore ka xidhan ee cintirka ku leh si aanay ku qaniinin in sogosiyo laga xidho in siraawi laga xidho in iyada la iska ilaaliyo in raguna xidhaan gacmo dheerayaal waxyaabahaas waayo qof male kanaacadi qaba hadduu kula nool yahay soo qaniinta adigana way ku qaadsiinaysaa taasaa dhibaatooyin badan inoo keenta wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa warkan waxa gudbin karto uun gabadhaan aad u jecelahan dhegeysto Faadimo Ibraahim balgaarsiya warkaygan wax badan baa laga faa'iidayaa